weynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada kulan kula qaatay dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya aqalka sare iyo golaha shacabka. kulankan waxay madaxdu kaga arrinsadeen sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda taas oo ka turjumaysa horumarka iyo hiigsiga dalkeena kuna qabsoonta jawi xasiloon oo dhammaystiran. kulankan ay madaxdu yeesheen waxaa lagu ambaqaadayay qodobadii warmurtiyeedkii 17 bishan ay wadajirka u saxeexeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhammaanba madaxda maamul goboleedyada iyo guddoonka gobolka Banaadir, kaas oo qodobkiisii 11aad uu qeexayay in heshiiska siyaasadeed loo gudbin doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si ay u meel mariyaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo qaadanaya doorka kaga aadan midnimada iyo ilaalinta wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayaa la wadaagay guddoonka baarlamaanka muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado qodobadii ka soo baxay shirkii wada tashiga doorashooyinka iyo dhamaystirkii heshiiskii Samareeb.